in maanta oo ay tahay 16 bisha Maarso 2020 aan xaqiijinay xaaladii ama keyskii ugu horeeyay oo coronavirus ah sidaad la socotaan waxaa jira muwaadiniin Soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu hayay airportka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuq aad iyo aad ugu koreeyay waxay ahayd taxadar waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaado caabuqa infectionka saakay ayaa resultiga jawaabtina loo keenay hal qof ayaa cudurkii qaba haddaba wariyaheenna magaalada Muqdisho Beela Sheegow ayaa wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan viruska corona ee Soomaaliya inoo haysa qofka xanuunka laga helay ayaa kamid ahaa 4 qof oo looga shakisanaa in ay qabaan xanuunka coronavirus kuna jiray xarun caafimaad oo karantiil ah oo ay dawladda sameysay sida muuqata xanuunka ayaa hadda waxa uu ku jiraa dalka gudihiisa walina dawladda ma aanay soo saarin wax amar ah oo ku aadan bulshada iyo isku imaatinkeeda si looga hortago in xanuunka uu faafo dawladda Soomaaliya ee sidoo kale shaacisay in la joojin doono duulimaadyada caalamiga ah ee sida tooska u imanaya magaalada Muqdisho arintan ayaa waxay saameyn doontaa diyaaradaha Djibouti Airlines Ethiopia Kenya Qatar Imaaraadka iyo Turkish Airlines amarkana wuxuu hirgeli doonaa 18 bisha Maarso dadka ajnabiga ah ee dalka gudihiisa jooga ayaa iskaga baxay iyagoo cabsi ka qabatayada caafimaad ee dalka dhanka kale dawladda Soomaaliya ilaa hadda ma aanay xaqiijin in ay haysato qalabkii lagu baareeyay xanuunka iyo adeegyadii caafimaad ee lagu tacaali lahaa inkastoo la xiriirayo duulimaadyada caalamiga ah wali waxa sii socon doona isku socodka magaalooyinka Soomaaliya gudahooda ah ilaa haddana dawladda ma aanay soo saarin wax amar ah oo arintaasi lagu maareyn doono iyo walibana adeegyada caafimaad ee u diyaarsan haddii xanuunka uu ku faafo magaalooyinka kale ee dalka gudihiisa ah wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya oo aan la xiriirnay marka laga reebo sida ay ugu dhawaaqday inay noo faahfaahiso ka doonaynay waa ay diideen inay nala hadlaan haddaba waxa qadka magaalada Edmonton ee dalka Canada si toos ugu jira Dr. Shariif soo dhawow sida Soomaaliya aad ogtahay awoodda ay ku baari karaan viruska corona iyo sida ay wax uga qaban karaan shaybaarada ay haystaan iyo kaabayaashooda walwal intee aad ka qabtaa inay awooddaas leeyihiin si ay wax uga qabtaan cudurkan isaad dareemayso dhibaatooyinka wadamada dhibaatooyinka u geystay waa dalal awoodoodii ama maxaa la yiraahdaa healthcare systemkoodii ama adeegooda caafimaad uu xoogan yahay balse Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka aadka ugu daciifsan dhinaca awoodooda adeega caafimaad marka waa mid in la ogaado oo la baaro cudurkana la helo mid labaadna waa in la hor istaaga ama la yareeyo dhibaatadiisa marka labadaba walaac weyn ayaan ka qabaa oo ay ila tahay in runtii aan la dhayalsan karin midda koowaad oo ah ogaanshaha cudurku ilaha dalka laga soo galo garoomada diyaaradaha waa mid kaliya dalkeenu xuduudo ayuu la leeyahay dalal kale oo cudurka laga helay dadkeenuna waxa aad loogu yaqaanaa inay yihiin dad isku socdaalo oo xuduudaha isaga gudba xiriirka ama awoodda dawladdu ay u leedahay in ay gaarsiiso sidii ay wax uga qaban lahayd ilaha dalka looga soo galo si loo ogaado dadka ka imanaya meesha ay ka yimaadeen iyo xaaladooda caafimaad sida ay tahay waa mid runtii aad iyo aad aan u xooganayn midda labaadna marka la ogaado sidii lagu maareyn lahaa waa arrin kale oo iyadana dalalkii xoogga lahaaba ay la kaca kufayaan oo ay ka mid tahay dalka Talyaaniga oo aad la socotaan tan saddexaad oo ah runtii in aan aad iyo aad wax uga ogaano ah ayaa waxay tahay arrinta vulnerability-ga ama jileeca dadkeenu ay qabaan inta badan waxaanu leenahay nutritionka ama nafaqada dadkeena aad uma xoog badna waxaan leenahay tiro badan oo ah dad ku nool maxaa la yiraahdaa meelo barakacyaal ay degan yihiin marka intaba marka ay isbiirsadaan catastrophiga ama dhibaatada ay la iman karto haddii uu cudurku ku fido dalku aad iyo aad ayuu xoogan yahay waa tahay Shariifow sida la sheegay viruska dad badan waxaa jira aan laga dareemin oo qarsada ama aan uusan soo ridanba marka haddana waa qofkii hadda laga helayna waa kii koowaad intee marka la filayaa inay jiraan arrimo kale oo saan oo kale ah oo dadka aysan soo bixin inta uu jirku ku jiro intaanu calaamadaha la arkin ee qofka laga shakin ayaa 2 usbuuc oo runtii ah mid dheer muddadaasina waxaa kaloo jira in viruskan ama strainka noocan hadda
uu yahay mid si degdeg ah u fida dadkii markiiba gaaro qofkii isagoo xambaarsan ayuu sii gudbin karaa oo dad badan uu gaarsiin karaa waxaa kaloo in la xusuusto mudan dadkeenu waa dad runtii isdhexgalka bulshada marka ay noqoto ama dadka sida ay iskula macaamulaan isku dhawaanshahooda isa salaamidooda wada dukashada salaada meelaha la isugu yimaado iyo goobaha kale lagu sheekeeyaba waa dad aad iyo aad isugu dhawaada marka intaasoo dhanba waxay keenaysaa runtii arrin walaaceeda mudan waa tahay dhul badan oo Soomaaliya awood iyo looma gaari karo iyo qalabkii ma yaalaan marka Muqdisho laga soo tago marka dadkaasi hadii dhinacyadaasi laga helo deegaano badan oo Soomaaliya kamid ah see wax looga qaban karaa ama see lagu ogaan karaa xataa inuu gaaray su'aal aad muhiimsan wax qabashada in wax laga qabtaa runtii waa